السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibadeena ku xiran channelkeena Ayub Baro. ugu horeyn intaanan muuqaalka u gelin waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo inaan ka bedelay channelka magaca aanan ku qoray Ayub Baro. insha Allah hadda wixii ka dambeeya waxaan ku wada socon doonaa magaca Ayub Baro. filimku waxa uu ku bilaabanayaa koox ka shaqeysa beerta galeyda waxaana beerta dhexdiisa silma filaan ah ugu dhacay dhulka in lagu magacaabo Johan, balse isla markiiba naftu way ka baxday waxaana ku soo cararay kooxdii ay ka wada shaqeynayeen beerta ayagoo ugu yeeraya magaciisa waxaana loo aasay sida dhaqankooda ah. Johan waxa uu ka tagay caruurtiisa, wiilkiisa ugu weyn waxa lagu magacaabaa Yarmaa halka walaalkiisa ka yarna lagu magacaabo Trewal. guriga waxa jooga walaalkood oo lagu magacaabo William. waxa uu hagaajiyaa raadiyayaasha xumaaday ee ka xumaaday dariskooda. William waa wiil hal abuur wanaagsan leh, wax walba uu hagaajinayana waxa uu u sameeyaa si wanaagsan. William waxa la dhalatay gabadh, waxaana uu aabaheed baray sida saqafka guryaha loo hagaajiyo. waxa meel fog ka arkay nin raadiyo loo sameynayay. William walaashiis oo hagaajinaysa saqafka guriga waxa uu saqafka ku arkay William oo damcay inuu ka qaato raadiyaha, balse waxa uu u sheegay inuusan ku guuleysan sameyntiisa. William markii uu soo dhamaystay qobeyska waxa uu sariirta ku arkay dharkii uu ku aadi lahaa dugsiga. isla markii uu guriga ka soo baxay waxa uu arkay labadiisa waalid waana uu ku soo orday. waxaanay ahayd maalintiisii ugu horeysay ee iskuulka uu aado. intii uu u socday iskuulka waxa ay israaceen saaxiibkiis Gilbert. dhanka kale waxaan arkaynaa Trewal oo ka shaqeynaya xamaali. dhanka kale xaaskiisa Trewal iyo gabadheeda Agnes waxa ay ka shaqeynayaan maqsinka lagu kaydiyo beerta waxa ka soo go'a. Trewal waxa uu go'aansaday inay subaxii markii la gaaray ardayda oo daabuur ka taagan waxa ku da'ay roob waxaanay ardaydii galeen galaaska. subaxaas waxa xiisada koowaad lahaa macallin lagu magacaabo Kaaji. waxa uu noqon doonaa macallinkiisa midka guriga ee wax ugu dhiga William. waxa uu macallinkani u dhigi jiray maadada sayniska. Guji ayaa William u sheegay inuu bixiyo aabihiis lacagta khidmadda ee iskuulka. William mar walba oo iskuulka uu ka yimaado waxa uu ahaa mid diyaariya xoogana saara casharada maalintaas uu qaatay. subaxii isagoo isku diyaarinaya imtixaanka bari la qaadi doono waxa yimi roob waxaana uu ka cabsi qabay inuu ka haro imtixaankaas. waxaanay hooyadii ka cusatay inuu caawiyo wiilkeeda William subaxii dambe waxa uu galay imtixaanka waana uu ku guuleystay imtixaankaas. markii uu ka yimi William iyo Gilbert waxa ay ku leexdeen meel ay yaalaan raadiyayaal la xooray, balse waxa ay ka baareen inay ku jiraan wax dib loo isticmaali karo. waxaanay ka heleen baytari waxaanay dib ugu soo laabteen guryahoodii. Gilbert aabihiis oo noqday madax dhaqameedka qabiilka ayaa u sheegay inuu sameynayo maalgelin waxaana diiday in maalgelinta la sameeyo hal qof oo ka mid ah qoyskooda. maalinkii dambe William waxa uu sameeyay dabin shimbireed si uu lacag uga helo shimbiraha uu qabtay. kadibna codkaas oo maqlayna waxa uu sababay inay geeduhu wada jajabaan. William markan waxa uu ku dhex orday roobka si uu u tago gurigooda. William wuxuu aabihii ku wargeliyay inuu bixiyo lacagta iskuulka. saaxiibkiina waxa uu isku dayay inuu hagaajiyo raadiyo xumaaday. markii ay guriga yimaadeen waxay arkeen Koji walaashii wadada joogta. maalinkii xigayna waxa ay isku dayeen inay jajabiyaan baaskiilkiisa Keji, balse way awoodi waayeen. markaas ayuu Gilbert ka codsaday inuu ka furo nalka baaskiilka si ay u qaataan isaga. markaas William waxa uu arkay
sida ay ugu shaqaynayso laambadda, taas oo ahayd markiisii ugu horeysay ee uu arko guluub sida tan oo kale u shaqaynaya. Habeennimadii ayuu maqlay hooyadii iyo aabbihii oo wada sheekaysanaya, waxaana uu maqlay lacagta iskuulka inuusan hayn aabbihii, uunan awoodinna inuu bixiyo lacagta uu iskuulka uu ku dhigto wiilkiisa William. aad ayuu uga xumaaday waxaa haysta, mana rabin inuu maqlo hadalkan aabbihii uu leeyahay. subaxii xigay, William iyo arday kale oo aan bixin lacagta iskuulka ayaa la soo istaajiyey, waxaana uu maamulaha iskuulka ku wargeliyay haddii aysan bixin lacagta iskuulka inay iska joogaan guryahooda, maadaama aysan haysan fiiga iskuulka lagu bixinayo. waqtigaas waxaa da'ayay roob aad u xooggan, daadkana aad ayuu u badnaa. maalinkii xigtay, William iyo Tyrell waxay aadeen warshadda tubaakada si ay ula kulmaan aabbahood saaxiibkoodii hore oo la oran jiray Daniel. uu soo dhoweeyey si wanaagsan, waxa ay kala hadleen arrintii ay ugu yimaadeen, taas oo ahayd in uu ka gato dalagga beertooda ka soo baxa, waxaana uu u sheegay in waqtiga soo socda inay dhici doonto abaar, balse waqtigaas dhirtaa si fiican umaysan bixin sababo jira biyo la'aan iyo abaaro jira awgood. maalinkii xigay, William waxa uu ku soo laabtay goobtii uu maalintii hore yimi si uu haddana uga qaato baytari dib loo isticmaali karo. maalinkii xigay, William oo raba inuu wax ka barto ayuu iskuulka si qarsoodi ah ku aaday. macallinkii iyo maamulaha iskuulkana og yihiin inuusan bixin lacagta iskuulka. markii ay dhammaatay xiisadda macallin ayaa niyadda u dhisay, waxaana uu siiyey tallaabooyin ka hadlaya enerjiga, waxaana uu macallinkaas geliyey William maktabadda. wayna adkayd inuu waqtigaas keligii u galo William maktabaddan. intii uu ku jiray maktabadda waxa uu helay buuggaas oo ahaa midii uu baadigoobayey. buuggaasna waxa uu ka hadlayay tamarta, sida looga dhaliyo korontada. dhanka kale, waxaan arkaynaa kooxda madax dhaqameedkooda oo khudbad u jeedinaya qabiiladiisa, waxaana uu sheegayaa in doorashada madaxweynaha hogaaminayaan dalkooda uu una qabanayo dhammaan waxa la xiriira arrimaha bulshada. waxaana goobta ka dhacay isfaham waa goortii ay hogaamiyaha kooxeedka ay dhulka ku tuureen askarta madaxweynaha. maalinkii xigtay, waxay kooxdan dhaqameedka ah beeraha ka goosteen dhirtii beertana waxa ay ka gurteen dalaggii oo dhan, waxaana ay raadiyaha ay ka dhageysteen in ay sii socon doonto cunno yaraan. maalinkii xigtay, waxaa bilaabatay koox mucaarad ah iyo kuwo kale oo ka soo horjeeda dowladda. subaxii xigay, William waxa uu aaday maktabadda si uu uga soo akhristo buug kuwaas oo ku saabsan sida baytariga looga dhaliyo tamarta, maadaama oo ay middan ay William maskaxdiisa ku reebtay raad aad u weyn. waxaana uu bedelay macallinkii Kecha. markii uu arkay maamulaha oo galaaska ku jira William waxa uu dib ugu laabtay gurigoodii, waxaana uu u sheegay in iskuulka laga soo celiyey, uuna ka soo celiyey maamulaha iskuulka. dhanka kale, waxaan arkaynaa dadka tuulada waxa ay arkeen baabuur wada raashin, qiimaha lagu iibsanayana ay tahay qiimo aad u jaban, waxaana ay William hooyadiis u dhiibtay lacag oo ku soo qaado raashinka la iibinayo ee u wado gaadhiga dowladda. dadka tuulada waxa ay bilaabeen inay daba cararaan baabuurka wada raashinka. guriga William waxa si lama filaan ah u yiminin aysan garanayn waxa uu ka xoogay cuntadii ay haysteen. dhammaan dadkani waxa ay saf u galeen raashinkii la qaybinayay, waxaana goobta soo wada gaaray dadkii tuulada oo dhan. William waxa uu isku dayay inuu meesha raashinka uu yaalo inuu kala soo baxo, waxaana uu ugu dambayn u suurta gashay inuu dilaaciyo meesha uu raashinku yaalo. William halkaas waxa uu ka soo qaatay wax walba oo uu rabay. maalinkaas wixii ka dambeeyay waxa ay u noolaayeen si caadi ah, balse xaqiiqada jirta ayaa ahayd inay hal waqti wax cunayeen. William ugu dambayntii waxa uu sameeyey. habeenkii xigay, William waxa uu u tegay walaashiis, waxaana uu weydiistay deynabo. maalinkii xigayna hooyadiis ayaa aragtay wiilkeeda oo soo guray bal,
waxaana uu William helay Daynabo waxaanay si wadajir ah ay ugu wada tageen maamulaha iskuulka waxaanay ka codsadeen inuu galo maktabadda wiilkooda William ugu dambeyntii waxa uu sameeyay qalab ku shaqaynaya dabaysha asagoo u adeegsanaya baytarigii uu ka soo helay meesha qashinka ah. Intaas kadib William waxa uu yimid aabihii oo beerta falaya waxa uu tusay qalabkii uu sameeyay balse aabihiis waxa uu kala kulmay cawaaqib xumo isagoo dhulka ku tuuray wiilkiisa William. Maalinkii xigtay William iyo saaxiibkiis Gilbert waxa ay bilaabeen inay falaan beerta. Dhanka kale waxaan arkaynaa hooyadii oo u sheegtay ninkeeda in wiilkeeda la siiyo fursad maadaama uu wax cusub samayn karo. Waxa uu isku dayay inuu sameeyo marxawad taas oo kaga dhaliyo biyaha lagu isticmaalayo beerta waxaanay faa'iido u noqotay noloshoodii oo dhan.